بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وإذ السلام يا دمانتين halkan golaha wakiilada saaka ana imi shirgudoonka iyo xildhibaanada sharafta leh aniga oo imi oo waa golahan ka tirsanaa way wada garanaysaan sababtu waxay ahayd arinta xildhibaan ka hadlay baan golaha u imi aniga qura ma shirkado badan iyo dad badan oo muwaadiniin ah oo cabanayana way yimaadeen warbixintii maalintii dhaweyto xildhibaan naasi cali shariik golaha ka hor akhriyay baana ay daaran tahay runtii xildhibaanada aanu sareynay shirgudoonkii waxaan isla garanay in aanay ahayn warbixin xaqiiqo ku fadhida ay ahayd wax ama iska siyaasadaysan ama lagu degdegay maalintii dhaweedna waan sheegay oo markaad xisaab ka hadlayso xisaabtu waa science baan idhi laba u gee 4 bay noqonaysaa waxaan intaa ahaynoo xisaab khalad way soo baxaysaa waxaan intaa ahayn marka waxaan mar labaad halkan ka sheegayaa golahana aanu imi wixii meesha laga sheegay inaan wax jira ahayn qofku markuu mas'uul yahay ama muwaadin yahay ama shirkad yahay waxa uu leeyahay marka doonaysa inaad halkan ka sheegto inaad marka hore waraysto dadkii oo dhan ee lagu soo qoray 70 qof ka badnaa qof bini aadan wax la weydiiyay waa la waayay marka intaas ku siman tahay inaanay wax xaqiiqo fadhida ahayn marka sidaas un baan doonayay inaan idin sheego aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi hore uga soo baxday ee bulshada hore u gaadhay ibnaha qaar bariyo wasiirada hore ku eedeynaysa inay musuqmaasuq ku kaceen waxba kama jiraan miyaad leedahay ma waxba kama jiraan meel laakiin waxaan ku leeyahay macnaha sidana ay barnaamijka u soo eedeynayaan eegada waxa weeyaan guddidu shaqay leedahay mas'uuliyad bay leedahay waxa weeyaan hantidii qaranka daba gasho way leedahay marka iyagu isagoo qofkii la soo eedeeyay marka hore aan xitaa ama qaab loola kulmin oo aanan maxaan ku dhahdaa inuu diiday iyo inuu qortol midna laga haynin baan si public marka media ula fulaya taasaan la dhaliilaya mooyaane waxa weeyaan oo waxa dhalisho ahayd procedure-ka markiiba in media la fulo qofkii oo waxba loo sheegay qofkii oo waxaasaad maxaan ku dhahdaa la tuunsan yahay maxaad ka sheegi karaysaa loo dhan in media-han la fulo waa yara muhiimadda la doonaya ah musuqmaasuq ma jira su'aalaha anaba kaaga jawaabay horta marka hore miisaaniyadda xisaab xidhka laga hadlayay 2016 baa 2016 warbixinta ay ka keeneen xildhibaanku dawoo idin sheegayo waxa la ansixiyay xisaab xidhka shalay marka warbixinada golaha waanu keeni jirnay oo waa deyn badan baanu golaha ka tirsanay guddidu markay warbixin keento goluhu ama uu ku qancamo uu ku qanci waaya marka 100% la ansixiyo warbixintiina dhinac la iska dhigo in lagu qanci waayo halkaas kaaga cadda midda labaad 2017 kuma jirin xisaab xidhka waxyaabuhu anaga nagu eedeeyeen 17 baa marka iyadoo aan waxna weydiin oo aanu cid kale wax weydiin oo xisaab xidhkii 2016 shalay la ansixiyay uu ka baxay xayndaabkeedii ayuu haddana nagu eedeynayay 17 marka meel isaga baydh iyo xasarad bay ahayd marka saasay horta musuqmaasuqna ma jiro annaga kule cidda musuqmaasuq baa jira leedahay ha timaado ama garsoorka ha timaado ama halkan ha timaado markuu qofku mas'uul yahay iminka dhul oo kale marka laga hadlayo madaxweynaha wasiirka iyo maayarku saddexduba awood sharci bay leeyihiin inay bixiyaan inay iibiyaan iyo inay kireeyaan saddexdaasay leeyihiin musuqmaasuq ma aha dee taas waa shaqadii mas'uuliyadda ahayd ee qaranku noo igmaday iskama odhan kartid magaalada intaa leeg waxay ku dhisan tahay ama warqad madaxweyne ama warqad maayar ama warqad wasiir dalka waxa ka dhisan oo dhami ma waxa weeyaan musuqmaasuq baa guriga ummaddu leedahay oo dhami iskama odhan kartid meel isku istaagto waa musuqmaasuq lagagana hadhi maayo inta hadhay garsoorkana waanu tegaynaa haddii alla ka dhigo assalaamu calaykum